talow qolada odayaasha qaarkood waxay ku taliyeen hal xidho oo ninkan aynu meel ku xidhno fikradiisa iyo mabdiiisu si uu xooga aanbal u xakamayno oo bulshada uga qabanno aynu meel ku xidhno qolo kalena waxay soo jeediyeen aan dillo ra'yiga saddexaad ee la soo jeediyena wuxuu ahaa may aynu masaafurino dhulka ka erino وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله الله سبحانه وتعالى ساسوليه سدح ذا الرأي مركي سوتشيدين أي نقو أن سدين رأيي أراني إن للدلو النبي صلوات ربي والسلام عليه حيالي هدي لحدنا مبدئ قوتي إيه فكر كيسي إيه عقيدة قوتي سيدا كل من ميس هدي لإريانا meesha uu tagay ayuu dadku abuuran doonaa kadibna isagoo xoog badan buu inagu soo noqon doonaa xalku waxa weeyaan inaynu dilo ka takhaluso go'aankaas la qaatay go'aanka markii la qaatayna rabbi subhanahu wa ta'ala malakul jibriil buu soo diray nabigu u yimi salawaatu rabbi wa salaam alayhi amar baa lagu siiyay inuu ka baxo magaalada Makka oo ka hijroodo markii la amray ayaa nabigu salawaatu rabbi wa salaam alayhi sida xadiiska sahih al-bukhari xadiithul hijra uu tilmaamayo ayaa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yimid saaxiibkii Abu Bakar oo ahaa ninkii ugu horeeyay ee nabiga rumeeyay salawaatu rabbi wasallam alayhi saxaabadiisana ninka ugu qaalisan ugu qiimo badnaa ahaa ayuu nabigu u yimid sallallahu alayhi wasallam Abu Bakarna marka ka hor buu damcay in uu Makka isaga tago ka hijroodo laakiin nin reer Makka odayaashii reer Makka kamida soo celiyay oo yaani yiri aniga magacayga ku joog magaalada oo ibn Daqina la yiraahdo Abu Bakar sidii buu ku joogay kadibna nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markii loo yimid la yiri ka hijrood Makka ka tag oo waxaad aadaa Madiina aad ayuu saaxiibkii Abu Bakar u yimid nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi kadibna arintii buu u sheegay way diyaar garoobeen nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi Abu Bakar Siddiq way israaceen markay israaceen waxay marka qorshuhu u yahay inay magaalada Madiina soo aadaan Quraysh marka waa ka war heshay inuu nabigi baxay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi Abu Bakarna raacay in la raadiyo oo marka la daba galo oo la soo qabto ayaa marka la bilaabay gurmad iyo ciidamo meel walba loo diro iyo jid walba la isleeyahay uu ku bixi karaaba ciidamo lagu diray nabiguna salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ma fogaanin ee magaalada Makka meelka buur agteeda ah oo la yiraahdo yaani thawr la yiraahdo buur thawr la yiraahdo magaalada hadda gudaheedaba ku taalaba ayuu god buurta korkeeda ah ayaa nabiga iyo saaxiibkii galeen waxay ku tala galeen marka inta ciidamadan wax raadinayay raad qaadkeed daba ordayay intay soo daalayaan oo ka soo noqonayaan inay meesha ku jiraan waa raad gadasho kadib markii ay ciidamadani soo noqdaan oo soo hungoobaan oo soo daalaan inay marka nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo Abu Bakar ay baxaan sidaas ay ku tala galeen kadibna Abu Bakar iyo nabigu sallallahu alayhi wasallam godkaasay galeen saddex habeen bay ku jireen Quraysh intay isu timid bay go'aan waxay ku gaadhay abaalgud ah waxay ballan qaaday ninkii Muhammad iyo Abu Bakar keena ama madaxoodii keena ama nolol ku keena 200 halaad buu leeyahay 200 halaad buu leeyahay waa ballan qaad waxa la bilaabay marka in si koox iyo si afraadaba loo raadiyo wadanka lagu baaho jidadka la aado meel kasto laga filayo inuu mari karo in markaasi laga raadiyo ayaa la bilaabay nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saaxiibkiisaan hore u sheegnay godkaasay galeen saddex habeen bay ku jireen sida xadiiska sahih al-bukhari ku yaala uu tilmaamayo Abdullah ibn Abu Bakr Siddiq oo Abu Bakar u dhalay oo wiil yar oo aqli badan oo aad u karti badan ahaa ayaa marka nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo Abu Bakar godka kaga warhayay saddexda habeen habeenkii markii la kala seexdo wuu tagayaa mantuusan waagu baryina wuu ka soo tagayaa oo magaalada intayna soo toosin buu imaanayaa sidii wax magaalada ka soo toosay uu iska dhigay habeenkii markay magaaladu kala seexatana waa ka tagayaa markaasuu godka ugu tagayaa wixii magaalada sheekadii jirtay iyo warkii la hayay iyo wixii magaalada yaalo dhan buu u geynaya taasi waa xaqii warka dhanka kaleetana Aamir ibn Fuhayra nin la yiraahdo oo Abu Bakr Siddiq adoon u ahaa oo arigiisana raaci jiray ayaa isaguna arigu foofiya subaxdiina wuu soo mariyaa habeenkiina markuu soo caraabinayo godka agtiisu soo mariyaa
caanuhu u lisaa markaasuu godka ugu geeyaa hadda nin arigiisa foofsaday oo haddana soo hoyinayo oo galabtii soo caraabinaya ninna tuhmi maayo meeshaana waxa weeye noloshooda yaa ku jirta meeshaasa macnaha waxa ay ka helayeen cabitaanka warka magaaladana halkaasay kala socdeen nabigii sallallahu alayhi wasallam saaxiibkii saddex habeen bay godka ku jireen ayagoo godkii ku jira ayaa marka waxaa soo maray oo ku soo aaday gaaladii raadsanaysay qayb ka mid ah godkii ay ku jireen bay isa soo dultaageen godkii markay isa soo dultaageen ayay marka abubakar sidiiq radiyallahu anhu iyo nabigii god ku wada jira abubakar baa arkay markaas abubakar wuxuu yiri rasuulka ilaahayow haddii mid iyaga ka mida uu lugihiisa hoostooda fiirin lahaa wayna arki lahaayeen waa sida xadiidka sahih bukhari iyo qeyrkii ku sugan uu tilmaamayo min xadiid anas ibn malik wuxuu yiri abubakar sidiiq qultu lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ana fil ghar nabiga waxaan ku idhi aniga oo godka ku jira law anna ahadahum nadara tahta qadamayhi la absarana nabi allahu midkood hadduu lugihiisa hoostooda fiirin lahaa wayna arki lahaayeen markaasaa nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ma dhannuka ya aba bakr bithnayni allahu thalithuhuma abubakar maxaad u malaynaysaa labo ilaahay saddexeeyo ma waxay kula tahay laba nin nabi maxamed iyo abubakar sidiiq radiyallahu anhu oo rabbi saddex ku yahay oo garab taagan yahay in wax la yeeli karo la arki karayo riwaayo kale waxay leedahay nabigu wuxuu ku yiri uskut ya aba bakrin ithnayni allahu thalithuhuma aamus buu yiri saad moodaysa arintu ma ahe labaynu nahay allahna ina saddexeeyo buu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam aayadu marka iyo ciwaanka arinta taariikhiga iyo dhacdada taariikhiga buu tilmaamaya la tahzan inna allaha ma'ana id yaqulu li saahibihi la tahzan inna allaha ma'ana hamurgin buu nabigu ku yiri abubakar hamurgin hana wal baharin hana cabsanin waxba leynama yeeli karo limaada lianna ilaahay baa ina la jira subhanahu wa ta'ala inna allaha ma'ana xaaladu marka waa xaalad adag waa xaalad nabigii sallallahu alayhi wasallam saaxiibkii magaaladii laga soo saaray waa xaalad ay duruuftu kaliftay inay god galaan waa xaalad la raadsanayo oo madaxooda intaasoo neefo geela uu ku xidhan yahay xaalada iyada cid kaleeto iyo wax maadiyo marka ku tashadaana meesha ma taalo waxa raadsanayana waa dad kuwii ugu xigay iyo qaraabadoodii way xaalada iyada ah ba abubakar sidiiq radiyallahu anhu markuu qalbigiisu wax dareemay ayuu nabigu ku yiri salawaatu rabbi wa salaam alayhi abubakar waxba ha murgin hana baqin ilaahay baa ina la jira subhanahu wa ta'ala munaasabad marka weyn oo runtii mudan marxaladan hadda muslimiintu ay marayaan illa xusuusiyo way munaasabad mudan way marxaladan hadda aynu marayno ee muslimiintu ay marayaan iyo marxaladaasi nabigu sallallahu alayhi wasallam uu marayay hadalka markuu saaxiibkii ku lahaa waxa ka dhaxaysa wax la yiraahdo tashaabuh isu ekaan waana sababta keentay in mawduuca mu'tamarka laga dhigiyo cinwaanka mu'tamarka la tahzan inna allaha ma'ana xaaladu waxay weeyaan xaaladaasina waa qurbadii hore ee islaamka tan hadda aynu ku jirnana waa qurbadii labaad labada qurbo marka way isu egyihiin jawaanib bay iska shabahaan jidka lagaga bixi karana waa isku mid khatartooduna waa isu egyihiin sidaas daraadeed baa nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaalada markuu marayay waa mid rasuulku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam inna al-islaama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba islaamku wuxuu bilowday isagoo qariib ah isagoo oo tuka cambaar la isagoo la eriyanayo isagoo dadkiisa la laynayo iyagoo meel ku nabadgeli la isagoo afkaartiisa mabaadidiisa laga soo horjeedo ayuu bilowday meeshiibana ku noqon doonaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka qurbadii hore ee aayadaas iyo xadiistaasi tilmaamayso iyo tan hadda aan maraynaba isu eg sidaas daraadeed waa darsi inoo iftiiminaya jidkii aan kaga bixi lahayn dhibaatooyinka maanta in haysta hadaynu nahay muslimiinta ka guud ahaan mar labaad ayaa sida sahih bukhariga ku taala hadalkan la tahzan inna allaha ma'ana mar kaluu nabiga ka sugan yahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh mar waxay ahayd markii isagiyo saaxiibkii ay godka ku jireen waana midda ayadu tilmaamayso sahih bukhariga waxa ku soo aroortay inay jirto mar kale iyadana arinta ay ciriiri gashay oo nabigu uu saaxiibkii abubakar ku yiri hadalkaas waxayna ahayd
sida xadiidka baraa ibnu caazib uu warinaya saxiix bukhari ku yaala abu bakar baa wuxuu ka iibsaday caazib oo baraa aabihii ah baraa ibnu caazib oo odayga ah baa abu bakar wuxuu ka iibsaday badeeco wuxuu ka siistay 13 dirham markaasa abu bakar wuxuu ku yiri odaygii caazib ah alaabtii markuu ka gatay wuxuu ku yiri muril baraa falyahmil ilayya rahli baraa amar wiilkaagan yarka ee baraa la yiraahdo amar siiyo alaabtaha ila qaado meeshan deganaha ila geeyo caadatan markii shay la kala gato war igu caawi ama wiilku